بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maalin wanaagsan dhammaan walaalaha Soomaaliyeed ee sharafta leh meel kasta oo aad joogtaan. Maanta waxaan mar kale idin soo hor istaagay inaan ka hadlo xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka iyo tallaabooyinka dawladdu ay qaaday ee ku aadan difaaca wadajirka midnimada iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. tan iyo markii kayaanka Israa'iil ee xoog ku haysta dhulka reer Falastiin uu ku dhawaaqay go'aankii qariska Turka ahaa ee uu qayb ka mid ah gobollada dalkeena ay yiraahdeen dawlad gaar ah ayaan u aqoonsanaynaa. waxaan qaadanay tallaabooyin kala duwan oo la xiriira difaaca midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed. waxaan xiriiro la sameynay dalalka caalamka iyo hay'adaha caalamiga ah ee aan annagu xubnaha ka nahay si aan taageero ugu helno qadiyadeena xaqa ah ee ka difaacidda qarankeena xadgudubka qaawan ee Netanyahu. alla mahadi dhammaan tallaabooyinkii aan qaadnay waxay ahaayeen kuwo guuleed, waxaana suurto gashay in dunida ay si isku mid ah iyadoo isticmaalaysa erayada ugu adag weliba ku diiday isku dayga Israa'iil ee kala qaybinta dalka Soomaaliya. sidoo kale waxaa lagama maarmaan noqotay inaan qaadano go'aano taabanaya heshiisyadii nagala dhaxeeyay dalalka qaarkood oo aan u aragnay in aysan u adeegayn midnimada dalka, dadka iyo dawladnimada Soomaaliya. sida aad ka warqabtaan, shalay oo ay taariikhdu ahayd 12 January 2026 golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa go'aamiyay in la buriyo dhammaan heshiisyadii dawladda federaalka Soomaaliya la gashay dawladda isu tagga Imaaraadka Carabta oo ay ku jiraan kuwa quseeya kaabayaasha dhaqaalaha, amniga iyo difaaca labageesoodka ah ee ku xusan go'aanka golaha wasiirada ka soo baxay shalay. waxaa hubaal ah in dad badan isweydiinayaan maxaa keenay in dawladdu buriso heshiisyadaas ay kula jirtay dawladda isu tagga Imaaraadka Carabta. waxaan rabaa in aan dadka Soomaaliyeed u caddeeyo in dawladda Imaaraadka Carabta aan la lahayn xiriir wanaagsan oo dhankeena aan u galnay si niyad samaan ah oo qalbi furnaan ah. nasiib darro, dawladda isu tagga Imaaraadka noolama dhaqmin sidii dawlad mid ah oo madax bannaan. intaas kadib weli maynaan degdegin ee marar badan ayaan ka dalbannay dawladda Imaaraadka inay noola macaamilaan in aan nahay hal dal oo madax bannaan, mas'uul ah, ayna joojiyaan habka docfaruurka ah ee ay albaabada kala duwan uga soo galayeen dalkeena ayagoo ku kacaya arrimo aanay mararka qaarkood ka warhayn dawladda federaalka ee Soomaaliya kana dhex fulaya Soomaaliya gudaheeda, kuwaas oo xadgudubna ku ahaa haybadda iyo qarannimada dalkeena. ka baaraan degid dheer iyo qiimeyn badan kadib waxaa qasab noqotay in aan qaadano go'aanadii shalay soo baxay ee lagu baabi'iyey heshiisyadii nagala dhaxeeyay dawladda Imaaraadka Carabta. go'aanadani waa kuwo ku salaysan difaaca danaha qaranka, madax bannaanida dalkeena iyo dhowrista midnimadeena dhuleed kadib markii ay noo caddaatay in sii socoshada heshiisyadaas iyo iskaashiyada nagala dhaxeeyay dawladda Imaaraadka Carabta ay khatar ku yihiin qarannimadeena iyo qaranka Soomaaliyeed. dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay xiriir wanaagsan oo ku salaysan sinaan
isqadarin walaalnimo saaxiibtinimo iyo wax wada qabsi la leedahay dhammaan dalalka caalamka laakiin marka ay noo caddaato in heshiisyada qaarkood culays ku yihiin danaha qarankeenna waxaa waajib nagu ah in aan tallaabo qaadno sida shalayba dhacday walaalaha Soomaaliyeedu waxaan rabaa muwaadiniinta Soomaaliyeed inaan u caddeeyo go'aanka dawladda inaan marnaba loola jeedin in dadkeena dhibaato ka soo gaarto sidaa daraaddeed dawladdu waxay mas'uuliyad weyn iska saaraysaa in wax kasta oo taabanaya nolosha dadka Soomaaliyeed ay ilaalinayso oo weliba horumarinayso waxaan mas'uuliyad buuxda iska saari doonaa sidii dadku u dareemi lahaayeen xurriyad iyo madax bannaani dhaqaale iyo mid siyaasadeed ayagoo kalsooni buuxda ku qaba dalkooda qaniga ah iyo dawladooda daacadda ah walaalayaal mar kale waxaan muwaadiniinta Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan uga mahad celinayaa dareenkooda daljaceylka leh iyo isku duubnida ay uga horjeedaan xadgudubka Israa'iil iyo saaciidayaashaba waxaan leeyahay sii wada dadaalkiina iyo difaaca dalkiina annaguna waxaan xoog xigmad iyo xoole wixii aan haysano ama aan heli karno isugu geynaynaa in aan xaqiijino midnimada dalkeena iyo dadkeena dawladda federaalka Soomaaliya waxay qaadi doontaa tallaabooyin kala duwan oo la xiriira difaaca qarannimadeena mana jirto cid looga heybaysanayo arrinta difaaca iyo midnimada qaranka mar kale waxaan ku celinayaa cod dheer ku leenahay Soomaali baa leh Soomaaliya ha midowdo waa mahadsantiin